السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلكسو دواد ورarka ciyaaraha ugu dambeeyay ee maanta kulamada la ciyaaraya Premier League iyo waliba kulamadii xal la ciyaaray waliba waxyaabay laga bartay kulamada caawa Arsenal oo ciyaar doonta Liverpool iyo waliba Leicester City oo isarki doona dhanka iyo Serie A Talyaaniga kulamada ayaa laga ciyaaraya kulamadaasi ayaan soo qaadanayo waliba wararka waaweyn ee ciyaaraha daawad haduu muuqaalkan ku soo gaar subscribe share oo laagdeh oo comment noo reeb daawashada daawatana ku maasantahay صاحب يلا سدواد waxaan guda gali doonaa warbixinada wiliba kulamada caawil ciyaaraya hadii aynu ku horeyno kulamada caawil ciyaaraya ayaa waxa wada ciyaaraya kooxaha Ingiriiska Liverpool iyo wiliba Leicester City ayaa sirki doona caawa marka ay tahay 45 daqiiqo sidoo kale Wolverhampton iyo Arsenal ayaa wada ciyaari doona sidoo kale Atletico Bilbao waa dhanka wiliba Copa del Rey Spain ayaa laga ciyaaray wiliba Valencia ayaa sirki doona oo wada balansana dhanka wiliba Copa Italia ayaa isna la ciyaaraya Atlanta iyo wiliba Fiorentina way balansan yihiin Juve iyo wiliba Sassuolo way wada ciyaari doonaan kulamadaas ayaa laga ciyaarayaa qaaradda Yurub dhanka kale hadii aynu eegno kulamo iyo xalal ciyaar kulamadaas oo kulamo aad u xiiso badan oo ay sarkeen kooxaha kala duwan ee ka ciyaara Premier League waxa wada ciyaaray Manchester City wiliba Brentford 2 iyo wiliba Everton City ayaa ku adkaatay Norwich City wiliba Crystal Palace hal iyo hal ay wada galeen Tottenham Hotspur wiliba Southampton waa laga badiyay Tottenham Hotspur Southampton ayaa 3-2 ku garaacday Aston Villa wiliba Leeds United 3-3 ay ku heshiiyeen Steven Gerrard Aston Villa hogaamiya ayaa waxa kooxdiisa ay noqotay mid barajada dhaaf weysa kooxda lagu magacaabo Leeds United kulamadaas ayaa xalal la ciyaaray dhanka kale warbixinada hadii aynu u guda galno Smith Rowe ayaa isha ku haya record u yaala xidiga Olivier Giroud kulanka Wolves ee caawa wada ciyaari doonaan xidigaasi recordkaasi muxuu yahay ayaa isha ku haya waa xidiga u ciyaar Arsenal ee wadada iyo Olivier Giroud marka ay Gunners la ciyaari doonto kooxda Wolves ee caawa horyaalka Premier League xidiga 21 jirka ayaa galay kulanka isagoo ah xidiga ugu goolasha badan ee Arsenal horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 8 gool laba kalena xidigana caawiyo iyo ka noqday 19 kulan oo ciyaaray kooxda waa Smith Rowe ayaan ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay toddobaadadii ugu dambeeyay sabab la xiriira qaab ciyaareedka Gabriel Martinelli oo qaab ciyaareed cajiib la soo baxay laakiinse waxa uu shabaqa taabtay kulankii Manchester United Leeds United Norwich City kuwaas oo dhamaantoodba uu ahaa kulamo ay Arsenal marti ahayd hadii xidigan reer England caawa gool dhaliyo Wolves waxa uu noqon doona waa kulanka caawa Wolves wada ciyaari doonaan xidigii ugu horeeyay tan ilaa iyo Olivier Giroud laba kulan oo xiriir ah Arsenal goolada u dhaliyay kulamo ay marti ahayd kooxda Arsenal Giroud ayaa haatan jooga kooxda AC Milan 4 gool oo xiriir ah ayuu ka dhaliyay kulamo marti ah kooxda Leicester City waa Watford Swansea City wiliba West Bromwich Albion xilli ciyaareedkii 2015 iyo 2016 dhanka kale xidiga amaha uga maqan Chelsea ayaa ka goolal badan balleeyay Romelu Lukaku oo 92 milyan ugu fadhiyay waa xidiga ugu qaalisan xidiga u ciyaar kooxda Southampton oo amaha ay ugu maqan kooxda Chelsea ayaa waxa uu ka goolal badan yahay xidiga ugu qaalisan kooxda Chelsea ee Romelu Lukaku weerarka ciyaara xidiga Romelu Lukaku ayaa ku dhibaatoonaya qaab ciyaareedka kulamadii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan isagoona aanan gool dhalin kulamadii ugu dambeeyay oo horyaalka Premier League xidigaas ku qiimeysan 97 milyan ugu fadhiyo kooxda Bili ayaa joogto ugu ciyaara kooxda kulamadii ugu dambeeyay ee haatan waxa uu ku dhibaatoonaya inuu gool u dhaliyo kooxdiisa Chelsea dhanka kale waxa qaab ciyaar laga yaabay ku jira xidiga Chelsea amaahda ay ku dirtay Arnold Broja kaas oo qaab amaaha kula jooga kooxda Chelsea ugu maqan waxa uu kula jooga kooxda Southampton waa xidiga goolka saddexaad ka dhalay kooxda Leeds United xidiga 20 jirka ayaa xilli ciyaareedkan weeraryahanka uga ciyaara Chelsea weeraryahanka ugu fiican ee Chelsea maadaama uu Southampton ama uu jooga xidigaasi Arnold ayaa xilli ciyaareedkani goolal badan lugtiisa ugu dhaliyay kooxda Romelu Lukaku kaas oo ka goolal badan yahay 5 gool ayuu dhaliyay xidigaasi ilaa iyo hadan Romelu Lukaku wax gool ma dhalin xidigaasi daayarka ayaa waxa uu ku lug leeyahay 6 gool sidaasina ayuu ka goolal badan yahay baa leeyahay Romelu Lukaku waa xidiga ay lacagaha faraha badan ay ku soo iibsatay kooxda lagu magacaabo Chelsea dhanka kale Barcelona iyo Chelsea ayaa iyana waxa ay dhamaantood wada doonayeen xidiga Julius Koundé kaas oo ah xidig reer Faransa daafac ka ciyaara xidigaasi oo ciyaara Sevilla ayaa waxa waayadii ugu dambeeyay wada doonaya kooxaha United Chelsea iyo wiliba Barcelona laakiin ugu dambeeyay Barcelona iyo Chelsea ayaa imika isku haya Barcelona ayaa Chelsea kula dagaalamaysa xidigaasi blue waxaana ay Mundo Deportivo ay sheegaysaa in xidigaasi ay doonayso kooxda Barcelona inuu shaaf iska adkeeyo daafaca
ayna doonayaan inay kooxda kusoo daraan si kastay ahaataba Barcelona oo ah koox imika la daaladhacaysa darooyinkii ugu dambeeyay kasoo kabata ayaa imika waxay doonaysaa inay adkayso iyadoo ay doonayso Azpilicueta oo ay doonayaan kooxda Chelsea oo ciyaar kaas oo ay ka doonayaan bal inay isna ay kusoo daraan kooxda u ciyaaro waa kooxda lagu magacaabay Barcelona dhanka kale kulamo kale iyo waliba waxyaabaha ugu waaweyn ciyaaraha halkan ayaa daawadayaal kala socod doontaan wararkii ciyaaraha ugu waaweyn daawadayaal maanta waa naga intaa daawada hadduu muuqaalkan ku soo gaaro subscribe share like comment sidaas iyo khayray nabadgelyo